السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada dhammaan akhyaarta inta channelka ku xiran inta cusub dhamaantiin ku soo dhawaada waa anigoo ah Yaxya Maxamuud Axmed waxaan idin soo jeedi doonaa insha Allah maanta muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa xeelado aad u muhiim ah inaad isticmaasho ama ugu yaraan aad taqaano marka aad isticmaalayso Word ma rabo inaan hadalka idinku dheereeyo waxaan si toos u galaynaa xeeladaha xeeladeena koobaad maanta waxay tahay waxa loo yaqaano pasting options inaad taqaano qaabka wax loo soo koobi gareeyo dadka badanaa waxbay soo koobi garayaan meelo badanaa wax laga soo qaadaa haddana formattingka ama sida hab qoraalka ay u qoran yihiin ayaa badanaa kala duwan ama color ha noqoto ama wax ha noqoto adigana waxaa laga yaabaa faylkaaga inuu hab qoraal gaara lahaa sidee isugu ekeysiin kartaa adigoo soo koobiyeynaya marka koobaad waxaan tegaynaa iminka faylkaas oo aniga ah faylka ii qornaa waxaan sameynayaa hadda waxaan rabaa inaan soo koobi garay waxyaabaha qaar faylkan kaba soo qaad waa website ama meel kale waxaan rabaa inaan soo koobi gareeyo qaybta koobi maan leeyahay markaan soo koobi gareeyo haddii aan markaa intaa xaggaa tago aan control v sida caadiga ah isticmaalo waxaa arkaysaa in colorkii iyo qoraalkii wixii oo dhan u soo qaaday iskumana eka fartaa si aan taa mid ka duwan u sameeyo oo qoraalkayga sidii uu igu qorna aan u qoro waxaan sameyn karaa waxaan leeyahay based options meesha ku qoran tahay right click intaan iraado ayaa waxaan leeyahay keep text only textiga keliya reeb taasoo sameynaysa in formattingkii mar walba faylka aad joogto uu kugu ekeysiinayo waxaa arkaysaa hadda qoraalkan waa isla qoraalkan laakiin kanna fartan uu egay kanna uma ekan haddii taas xeeladeena koobaad ahayd xeeladeena labaad waxay noqonaysaa sidee qoraalka markaa sidan oo kale kaa noqdo uu kala duwanaado sidee isugu ekeysiin kartaa waxay isugu ekeysiin kartaa adigoo isticmaalaya programka loo yaqaano ama toolka loo yaqaano format painter maxaan sameynaynaa waxaan soo highlight gareynaynaa meesha aan rabno inaan u ekeysiino waxaan tegaynaa format painter kadibna waxaan sameynaynaa meesha aan rabno inaan u ekeysiino ayaan saas u highlight gareynaynaa waxaa arkaysaa in qoraalkan iyo kii hore uu sidaa isugu ekeysiiyey xeeladeena saddexaad waxay tahay sidee loo isticmaalaa clipboardka wax loo yaqaano ama koobiga fara badan marmarka qaar waxaa aqrinaysaa dhowr kitaab ayaa kuu furan website ayaa kuu furan waxaana rabtaa dhammaan inaad meelahaas waxyaaba kasoo qaadato mana rabtid inaad mid walba si gaara usoo doonato waxaa sameynaysaa hal mar ayaa soo wada koobi garanaysaa kadibna meeshaad mid walba ka rabto ayaad ka dhigaysaa waxaan sameynayaa meesha aan rabo inaan wax ka koobi gareeyo ayaan tegayaa waxaan soo furayaa daaqada ay ku qoran tahay clipboard daaqada markaa soo furo waxaa ii soo baxaysa qoraalkan daaqada yar baa soo baxaysa daaqada iminka clear ayaan iri meeshii wuxuu ku leeyahay clipboard is empty markay sidaa tahay ayaa waxaan sameynayaa wixii aan raba ayaan soo koobi gareynayaa markaan koobi iraado koobi ayaan leeyahay waxaa arkaysaa xaggaa inuu ii geliyey hal haddana waxaan rabaa inaan haddana qaybta koobi gareeyo waxaan leeyahay copy waxaa arkaysaa inuu labo ii qaaday haddana website ayaan tegayaa waxaa laga yaabaa inaan soo qaato yufiidu alxadiith matalan ilaa intaa copy ayaan leeyahay saa ayuu igu qaaday haddana waxaan u baahday xadiith ama aayadan oo kale waan saasan usoo qaadanayaa kadibna copy intaas anigoo wataa waxaa arkaysaa in ay wixii aan soo koobi garay oo dhan xaggaa ay igu urursan yihiin haddii aan u baahanahay aayadda si fudud ayaan waxaan leeyahay aayadda soo qabo saa ayuu igu soo qaaday aayaddii igu geliyay iyadoo macal wata linkigii laga soo qaaday haddana haddii aan rabo ereygaas ama jumladaas aan soo koobi gareeyo sidoo kale igu soo koobi gareynaya sidaas ayaad marka usoo qaadaysaa sidee ugu ekeysiinaysaa horaan usoo sharaxnay xeeladeena afaraad waxay tahay sidee nambarada af carabi uga dhigi kartaa ama af ingiriisi hadba kii aad doonto hadda waxaan arkaynaa in nambarka markaan qoro uu nambarka si qaab af ingiriisi u qoraayo haddii aan rabo inaan qaab af carabiga ka dhigo waxaan sameynayaa file ayaan tegayaa waxaan tegayaa maxaa la options waxaan tegayaa advanced markaa tago ayaan hoos u riixayaa xagga ay ku qoran tahay numeral ayaa waxaan ka dhigayaa context waa haddii aad rabto ingiriisi markaa qortana inuu ingiriisi u qoro marka carabi rabtana inaa af carabi haddii aad rabto af ingiriisi keliya waxaad oranaysaa qaybta af carabiga
haddii aan nambarada sida carabiga aan naqaano inaan u qortana waxaad dooranaysaa hindi. hadda hindi markaan doorto okay iraado waxaa arkaysaa nambaradii inuu si qaab af carabiya iga dhigay. xeeladeena shanaad waxay tahay sidee u bedeli kartaa default font ama fontiga mar walba kuu jooga xaggaas. marka document kasta cusub furto sidee hal font oo gaar ah u samayn kartaa. waxaan soo furaynaa daaqada ay ku qoran tahay font aan tegaynaa waxaan soo furnaynaa font. markaan xaggaa soo furo xaggan aan ka dooranayaa farta aan rabo mar walba inay automatic ii noqoto. markaan farta doorto waxaan dooranayaa qaabka aan u rabo kadibna numberka mar walba aan wax ku qoro ayaan xagga ka dooranayaa 12 ama 14 ka walba wax ku qorto. markaa sidaa usoo doorato ayaa waxaa leedahay set as default kaliya. markaa set as default ku dhufato wuxuu ku leeyahay ma waxaa rabtaa in documentigan kaliya aan ka dhigno mase documents koodan. waxaa leedahay all documents based on the normal template. xeeladeena lixaad waxay tahay badanaa markaan nambareynayso waxaa dadka qaab qabsada number saasoo kale markay qoraan oo faqradda ay sidaa u qoraan faqrad labaad ee qoraan faqradda labaad ee la qoray haddii ay faqrad kaloo kasii hoos baxda yeelato sidee u samayn kartaa. waxaad si fudud u samayn kartaa haddaan rabo saddexaad inay noqoto qayb kamid ah ta labaad waxaan sameynayaa calaamadda ayaan tegayaa. waxaa arkaysaa in uu gudaha geliye kadibna iyadaan ku dhufanayaa kadibna xagga ayaan tegayaa kadibna nooca aan rabo alif iyo ba haddii aan rabo saa ayaan usoo dooranaya. haddii aan taa mid kale inay kasii baxda rabo sidaasi lamid ah ba waxaan sameynayaa hoos inaan usii geliyo ay calaamadda markay saa noqoto ayaa waxaan ka bedelayaa hadba nooca aan rabo ka dhigaya haddii aan rabo in nambareynta aan dana u celiyo. xeeladeena toddobaad waxay tahay sidee si fudud ugu samayn kartaa line kala xidha qoraalada. waxaa si fudud ugu samayn karnaa in aan lineka inaan qorno 3 calaamad oo daasha kadibna aan enter niraano. waxaa arkaysaa inuu noo soo geliyey lineka kala xidha. nooc kale oo line ah waxaan samayn karnaa calaamadda afar geesta ayaan 3 jeer taabanaya kadibna enter ayaan leeyahay lineka yar buuran ayuu noo dhigay. waxaa sidaas lamid ah samayn karnaa line kale oo nooc kale ah calaamadda xidigta haddii aan 3 jeer taabto iyana oo saa iraado lineka dotska go'an ayuu noo dhigaa. markaad rabto qoraalada inaad kala xidho waxaad si fudud u samayn kartaa calaamaddaas. xeeladeena sideedaad waxay tahay font embedding wax loo yaqaano ama qoraal markaa qorto far qurux badan ama adiga kuugu jirta aad ku qorto aa isleedahay dadka aa u diri doonto ama faylka la shargalay doonto uguma jirto. waxaa sameynaysaa wax la yiraahdo font embedding si aad u sameyso waxaa sameynaysaa file markaad tagto options ayaa leedahay. options markaad tagto ayaa waxaa leedahay save kadibna waxaa leedahay embed fonts in this file. kadib wuxuu ku leeyahay labadaa khiyaar ayuu ku siinayaa ama option wuxuu ku leeyahay farta guud faraha guud ee badanaa kombiyuutarada oo dhan ku jira ha embed gareynin. sax ayaa saaraysaa si uunan size-ka faylka u weynaanin. taa kale sax waxaad saaraysaa haddii aad rabto in xarfaha lagu isticmaalo keliya uu farta ka qaado. haddii aad rabto fartoo dhan inuu embed gareeyana iyadaa ku dhufanaysaa. andhehe waxaad taa sax saaraysaa haddii aad rabto in file size-kaaga uu aad u yaraado kadibna okay ayaa leedahay. hadda fart kastoo aad ku isticmaasho haddii aad mathalan mid kala doorato farta saa ayuu ku qaadayaa farta iyo designka iyo wax walba sida u qaadato. laakiin mar walba waxaa fudud una fiican in faylka aad rabto inuuna isbedelin marka aad qof la sheergalayso mar walba waxaa fiican in aad pdf ahaan u dirto si aanay isu bedelin. xeeladeena waxay tahay haddii aad u baahan tahay in aad qoraal ama cashar ku bixiso ama bahalki aadna fursad u haynin inaad qorto waxaad samayn kartaa si fudud qoraal si aad si fudud ugu soo geliso. waxaad qoraysaa calaamadda equation kadibna waxaad qoraysaa rand markaa qorto kadib waxaad leedahay waxaad furaysaa calaamadda bracketka waxaad gelinaysaa inta
inta baaragraaf aad rabto 3 baaragraaf aan rabaa markaad tiraahdo 3 baaragraaf aan rabaa waxaad adana sheegaysaa halkii baaragraaf kasta intee sentence ama jumlo inuu ka koobnaado 5 jumlo inuu ka koobnaado aan rabaa saa markaan iraahdo okay ayaan leh wuxuu ii soo gelinayaa qoraal text random ah oo aad arkayso aan ku fuli karno ama ku bari karno qofka wixii aan rabno inaan ku sameeyno qoraalkan wuxuu ka kooban yahay imika 5 baaragraaf عندنا 3 باراجراف sida aan codsanay halkii baaragraaf kasta wuxuu ka kooban yahay 10 sentence xeeladeena tobnaad waxay tahay waxa la yiraahdo document protection in aad documentiga ama fileka aad ilaaliso oo password u samayso waxaad ku samayn kartaa xeeladaas in aad file tagto kadibna aad tiraahdo info kadibna aad tiraahdo protect document markaad tiraahdo wuxuu ku siinayaa dhowr option waxaad leedahay encrypt with password kadib wuxuu ku leeyahay passwordka geli passwordkaasan geli mar labaad ku celi ayuu ku leeyahay waa ku celinaysaa kadib waxaad arkaysaa filekan qofkii kale ee hadhow furaa waxaa la weydiin doonaa passwordkaas 10kaas xeeladood ay ahaayeen maanta intii aan rabay inaan idinla wadaago xeeladahaas oo kale iyo kuwa lamida iyo kuwa ka badanba waa soo gudbi doonaa haddii ilaahay idmo fadlan nagu soo biir haddii aad channel ka mid ahayn haddii aad channelka nagula jirtana la wadaag videoga ama muuqaalka ciddi kasta aad leedahay wuxuu u tarayaa intaan muuqaalkan lamida isku arki doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu